منفعة مصلحات بدون السنة الحقيقية أنا دوني ولا الكائن هلا تاسنا ولا التنمية ذا ويدا وعيسى وذات كي كنا وعيسى ورا الله كنا وعيسى دمر كي رجع كنا وعيسى مصلحات ذا ولا الكائن هلا أذا هلاي لأنه اسكو هدف باتي اسكو تهين اسكو وحبة حقيقية نيس رسولك كدقي عليه الصلاة والسلام تا ولا التنمية إن أنا هاي بوت المامية كسبح لا يحب أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه متكيني ما يلن ما إلى ولالك لا تعلاضه وحو نفتي سلت عليه إلى ولالك لا تعلاضه وأدو أنا كقصة بحياة مجع لهم موقنا يوم أنا ذهادين ندتك أنت كلنا أنا ذهابين قد يضع عدي وصعوا فكرة إيمان كذا كمتها إيمان يلن ما يبون بيقول لي أخويا ولا التنين بنشري ميس عقبضها هي كمت عقبضها وحكمت الضوء إيا مرنك فراها بدنية شافة شرق هذه نوعي ماذا أما فرد كدير لها أما سرتشو كدير أما إذا عاد كدير وحدون يساروا بحية الخصوم إيا مرنك فراها بدن إيا كفتنك وقبي إسلام كوا يقول يا كفتن إن كفتن كده أينو إنه كفتنا ما أهمها جاك سنة وامد قف كهانك اللي جوينيو ودناها اللي تشريو عيب لقب بعدي دونيو لا أبورا يعيب النبي يقول الله عليه الصلاة والسلام إني لا أمزح ولا أقول إلا حقا وان كفتمية لكن حق حانين مورانيو وكفتمي جري الرسول كفتن كيسو ربوها مركاتات كفتمي سيو بدني كفتن كبدني وحيابها إسكين نعسين يوي كفتن كوا إنه كوبنا مركا العاجسة وحيرا dadka diiriya waa inuu noqdaa laakiin waa inaanu noqonin waxa mafrishka lagu hayo waxa meesha lagu camirayo waxa dadka kala kaxaynaya waa inaanu noqon iyo buranka faraha badanna waa waxyaabaha walaaltinimada dhaawacaya waxyaabaha walaaltinimada caqabada ku walaalayaal waxa kamid ah baahi aynu qabna daraadeed baynu bukaankan inaynu ka warrano u soo horeysiinaynaa qiyaabu bacdihim aan ilaakhariin iyagoo kala maqnaanshaha aynu kala maqan kuwaasina markas iyo mafrish iyo masjid leeyihiin kuwaasina markas iyo mafrish iyo masjid leeyihiin ama meel u gooni ah oo ay degaan oo ay fariistaan oo lagu yaqaan oo ka markaa yimaado sida loo wada eegayo isha lagu mudayo dalami soo aanbaday xagu talow ka yimi kan kii reer hebelalkan maanta talow muxuu haduu doono waxa oranayaan mi talow ina basaasaya waa kanoo afku inoo soo dhuubay oo dhagtu inoo dhigay talow muxuu la socdaa maanta hadda waa kii walaalkii ahaa ee laga yaabo inuu seedigii yahay laga yaabo inuu garabsan lahaa ee garab iyo gaashaan u noqon lahaa boogta haddaa taaban weydaan oo ka warwareegtaan ilaahay agtiisana nabadgeli maysaan ummadnimana hagaagi mayso islaamkeenu marka uu jamacan ina faray ee jumcada uu ina faray ee ciidda uu ina faray ee xajka uu ina faray waxyaabaha lagu daweynayo waxa kamid ah walaaltinimada macaanka ay leedahay walaaltinimada macaanka ayaa lagu baadi doonaya lagu daweynaya dadkaasi kol haday kulmeen 5 jeer 24 saacadood way salaadii kulmeen jumcadii ay kulmeen usbuuci shirweynihii xajka ay ku kulmeen sanadkii kulanka laftiisa dawaa kulanka laftiisa qulubta isu furaya kulanka laftiisa ku saaxiibayana isku baranaya kulankaas xaqiijinaya ukhuwada iyo macaankeeda saa daraadeed buu ka digay nabigu calayhi salaatu wasalaam qofka jamaca iyo jumcada ka maqnaanaya caqabadaha waxa kamid ah jahliga oo qofku sidiisaba shayga marka uu xaqiiqadiisa ka jaahil yahay dema qiimeyn karo markaanad garanaynin diintu halka ay ka taagan tahay walaaltinimadan iyo arin ijtimaaci oo bulsho aan inaanay ahayn arin diinaynayt arin diina way walaalka oo aad jeclaato ilaahay iyo malaa'igtiisa kugu jeclaanaya walaalka oo aad nacdo kala dhaqaajisaana إلهي ملائكتي ساكو نعيا wax sahlan ma waa qadiyad diina waa qadiyad aan sahlanayn nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamaya in sayno xadiidkii soo maray iimaankii uu ku xiran yahay waxa uu tilmaamaya labadan qof inay jid kaliya yihiin wuxuu tilmaamaya inay dhismay isu yihiin waxyaabaha caqabada ku sii waxa kamid ah balwadu adiya jeer bahalka la cunayo wuxuu leeyahay waswaas badan qofka fikirkiisa iyo maskaxdiisa wax ka bedela shakigana wuu badiyaa dareenka qaloocan ayuu dadka ku badiyaa marka qofku wax laga yaabaa inuu iska sanifo hebelkii ay saaxiibka ahaayeen ila waa qof aan xaaladiisu caadi ahayn mar uu mirqaansan yahay
marna uu xaraaraysan yahay marna uu qaadiraysan yahay soo saddexdaas uu maaha ninku daa hadduu qayilo mar uu marqaansan yahay oo xaaladiisu caadi maaha oo qofka xunna uu wanaajinaya ka wanaagsanna uu xumaynaya sida uu hadlayo iyo sida uu sharaxayo sida qofna uu marna uu xaraaraysan yahay oo afku kala qaadaya wuxuu ku ridi lahaa buu doonaya ku qayla marna waa qaadiraysan yahay oo tamartii baa ka maratay oo waa silan yahay liita marka balwadu wax sahlan maaha bulshada kollay waa laga yaabaa halkiinan dee inay tuugaysi uun tahay oo si uun ula yara dhuumanaysaan waxa la isagoo dee aad u garaabo ah oo halkii riyuhu ku cuni jireen maraya ayaa tumataano qariirataan baa la yidhi waa raggiyo gobonimadii ka yaraatay gobonimadii baa yaraatay runtii kaasina waxaynu odhan karnaa ama cusayb ha lagu cuno ama duug iyo garaabaha lagu cunee isaguna waxyaabaha dadka shakiga kala geliyuu ka mid yahay uu qofku odhanaya hebel waan iska dhaxarkay hebel waan iska dhaxarkay buu leeyahay waxyaabaha runtii caqabada ku ah kuwa ugu sii muhiimsan walaaltinimada caqabada ku ah kuwaasa ka mid a markaynu intaa soo dhaafno ee aynu dareenno intaasoo mushkiladii maadaama ayna hor taalo walaaltinimadiina yaraatay inaan dadku hore u socon karayn ilaahay agtiisiiyo ummadda agteeda iyo adduunyadaba aanay hore u mari karayn ilaa ay baabkan soo celiyaan oo aynu garannay mowduucaas in odayaashu ka hadlaan oo culimadu ay ka hadlaan inuu istaahilo waxaynu xoogaa kooban ka taataaban lahayn haddii ilaahay ka dhigo bal sida rasuulku sala allahu calayhi wasalam macnaha walaaltinimada iyo qiimaha ay leedahay macaankeeda uu cabiray ayaynu wax ka taataaban lahayn qur-aankii soo qaadanay axaadiidta nebiga aanu gudubna calayhi salaatu wasalaam iyadoo aada u fara badan oo aynaan dee halkan kusoo koobi karaynin ugu horeyn rasuulku markuu dowladdan islaamka ee sheekhu goortii dhaweedu idinkala hadlayay uu dhisayey walaaltinimadaasuu ka bilaabay kow haddaynu dowlad doonayno islaamiyahoo wanaagsanoo miyir qabta dal iyo dadba xoraysa ummadda caalamka hormuud iyo namuudaj iyo tusaale u noqota walaaltinimada laga bilaabaya iyo ukhuwada macaankeeda iyo in dadku ay isku tashadaan iyagoo ilaahooda kaashanaya taasaa kow ka ah taasuu ka bilaabay nebigu markuu masaajidkii dhisay madiina wuxuu ku xigsiiyey waxay ahayd inuu walaaleeyey asxaabtii qoladii maka ka timi iyo kuwii madiine sii joogay ayuu mataaneeyey waa walaaleeyey aakhaa baynahum adigu hebelow hebel baad la qoys tahay hebelow hebel baad la ardaa tahay hebelow hebel baad ku ladhantood ku lifaaqantay sidaas u walaaleeyey waxa uu leeyahay cabduraxmaan ibni cawf haddii aad tahay sacd bnu rabiic asxaabiga la ydhaa baad adigu la walaaltay haddii aad tahay abi cubayda oo soo qaxay abu dalxad la walaala tahay haddii aad tahay abi dardaa baad la walaala tahay saasaa isugu lifaaqantihiinoo waxna wada cuna beerahana wada yeesha xoolahana waa isdhexlaysaan maleekada waa isdhexlaysaan dhaxalkii kaas kan soo qaxay ka kalu dhaxalka la leeyahy arrintaasi markaa dee nebigu isagu go-aanka ha gaadho ha u soo jeediyay asxaabtii laakiin sidaa u aqbaleen sidii ugu quruxda badnayd ba u aqbaleen ilaahay baa ka markhaati furay subxaanahu watacaala ilaahay baa waxa uu leeyahay للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم حون كوي ساق حي intaasoo arrimood iyo wanaag iyo diin iyo daacadnimo iyo inuu ilaahay ka raali noqdo doonayey waxaa soo dhoweeyey kuwii madiine deganaa oo wixii ay naftooda hayeen intay ka qaadeen walaalahooda soo qaxaysiiyey waxaa la yaqaanaa caalamka deegaanku inuu had iyo jeer qaxoontiga iska necab yahay soo wax jira maaha markay ummadi meel sii taalo ee qolo kalena soo qaxaan shaydaanku wuu dhex fadhiistaa wuxuu idhaahdaa noocan soo qaxay wixiinuunbay ku socdaa dalkiina iyo daarihiina iyo duunyadiinay ku socdaa nimankaa in la iska waabiyaabaa inaynu markay u sahlantahay xero iskaga xidhno aynu ku karantiimayno halka arsaaqad ha loogu geeyo ama ha loogu dawaree in la iska xidhaabay istaahilaan
ummadaha caalamku qaxoontiga had iyo jeer